Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Sheekadeenna qaybtii koowaad waxa ay inoo joogtay Waliid oo albaabka ka soo galay hooyadiis oo oynaysa oo dhulka taala, asagoo ku qayliyay maxaad samaysay, iyo xaaskiisii oo ku leh aan wax ku fahansiiyo. Hooyadiis oo oynaysa oo dhulka taala markii uu arkay aad ayuu u xanaaqay, waxa uuna ku yidhi xaaskiisa, waan ku furay ee albaabka iiga bax. Xaaskii guriga ayay ka tagtay. Waxaa halkaa inoogu ekaa qaybtii koowaad. Qaybta labaad waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Waliid markii uu xaaskiisii furay oo gurigana ay ka tagtay, waxa uu dareemay kalgacal iyo hilow uu u qabo xaaskiisa, balse hooyadiis ayaa mar walba kaga sheekayn jirtay xumaan ay ku samayn jirtay. Markaas ayuu aad u nici jiray uuna ku xanaaqi jiray. Waxay kaloo ka codsatay hooyadiis in ay u raaciso warqadeeda furiinka ah oo si toos ah uu u furo, balse Waliid ayaa arrintaas diiday. Waxa uuna yidhi, hooyo aniga si toos ah umaan furin, mana doonayo in aan warqadda si toosa u siiyo. Hooyadii ayaa ka carootay oo isaga tagtay. Waliid waxa uu iska aaday shaqadiisa, balse waxa uu arkay in aysan shaqada imaanin xaaskii uu furay ee Muna. Waa uu yaabay oo waxa uu isweydiiyey, ma warqadeedii ayay xafiiska ka qaadatay oo toos ayay uga tagtay shaqada, mise si kale ayay ku maqan tahay. Isaga oo xafiiskiisa jooga ayaa waxa uu imaaday gabadhii sekreteerka ahayd. Waxa ayna u sheegtay qof in uu bannaanka u taagan yahay. Waliid ayaa ku yidhi qofka bannaanka ii taagan waa ayo. Gabadhii ayaa ku tiri ma garanayo, balse waa qof daruuri ku ah. Waxa uu ku yidhi soo daa. Waa uu u soo galay. Misna qofkii waxa uu noqday Muna aabaheed. Muna aabaheed isaga oo caraysan ayuu ku yidhi, kugumaan imaan in aan kaala hadlo sababta aad u soo ceyrisay gabadhayda iyo bahdilka aad ku samaysay. Maxaa yeelay iyada ayaa guursatay markii hore qof adiga oo kale ah. Balse Waliid ayaa arrintii ka dhex galay oo ku yidhi, soo fadhiisa aabbo aan wada hadalno. Waxa uu ku yidhi odaygii, hadal in aan gala diyaar uma ihi, balse waxa aan kuu sheegayaa in aad haysato waqti kooban oo keliya, lagaagana baahan yahay in aad soo dhiibto warqadda furiinka gabadhayda. Wuuna dhaqaaqay odaygii. Waliid aad ayuu uga naxay arrintan, murugo badanna waa uu dareemay. Waxa uuna galay fikir. Muddo markii uu fikirayay ayaa waxa u soo dhacay taleefan, misna waa hooyadii. Waxa ay ku tidhi, waxaa ila joogta habaryartaa ee waa in aad si degdeg ah noogu imaataa. Waliid shaqadii ayuu ka soo tegay, waxa uuna tegay guriga. Balse waxa uu arkay hooyadiis iyo habaryartiis iyo gabar ay dhashay habaryartiis oo isla jooga. Markii uu guriga saas u soo galay oo uu salaamay, waxa uu damcay inuu qolkiisa galo uu soo dharbadashto. Balse hooyadiis ayaa ku tidhi, orod oo makhaayadda qada nooga soo gad. Waliid arrintan aad ayuu oola yaabay. Maxaa yeelay hooyadiis markii ay xaaskiisa rabto in ay makhaayad wax ka soo gadato, waa ay qaylin jirtay wayna diidi jirtay. Waxa ayna dhihi jirtay, gabadhan waxay rabtaa in ay ku dheesho hantidaada, balse maanta ayada ayaa igu leh makhaayad wax ka soo gad. Waliid waa uu yaabay. Waxa uuna la yaabay waxa isbedelay iyo sida ay wax u jiraan. Balse maadaama ay la joogto marti, waa uu baxay wuuna soo gaday. Qadadii ayuuna keenay. Waa la wada qadeeyay waana la wada sheekaystay. Hooyadiis ayaana ku tidhi, gabadhan ay dhashay habaryartaa waa gabadhii aad guursan lahayd. Waa gabar aad u qurux badan, waa gabar dabeecad wanaagsan, waana gabar aan doonaynin hantida, ee waa in aad si fiican u fiirsataa si aad u guursato. Waliid waa uu ka aamusay arrintaas. Waxa uuna naftiisa ku yidhi, aniga wax dan ah kama. Habaryartii iyo gabadhii waa ay baxeen, waxa ayna aadeen gurigooda. Maalin maalmaha ka mid ah, Waliid oo shaqadiisa jooga ayaa waxaa soo wacday hooyadiis. Waxa ayna u sheegtay in ay xanuunsan tahay gabadhii ay dhashay habaryartiis. Waliid waa uu og yahay in aysan xanuunsaneen gabadhaas, balse hooyadiis ay doonayso in uu aado gurigooda.
si uu u qanciyo hooyadiis ayuu u ogolaaday waa uuna raacay hooyadiis. Waxa ay gaareen guriga habaryartiis. Waa la soo dhaweeyey. Misna gabadhii ay dhashay habaryartiis oo aad u labisan aadna isku soo qurxisay ayaa soo ag fadhiisatay, iyadoo la sheekaysanayso sidoo kalena aad u qoslayso. Mar walba waxa ay ku mashquulsaneed oo ay fiirinaysay taleefankeeda. Waxa uu si kadis ah ku arkay fariin ah: haddii aad guursato hadda waxa aad noqonaysaa taajir. Daqiiqado kadib waxa u dhawaaqay oo u wacay hooyadeed. Iyadana waa ay istaagtay iyadoo ka tagtay moobeelkii weliba asigoo furan. Waliid waxa uu damcay in uu ogaado arrinta ka dambaysa fariintii uu arkay, taasoo ahayd haddii aad hadda guursato waxaad noqonaysaa taajir. Moobeelkeedii ayuu fiirfiiriyey. Waxa uu ku arkay maaseejo aad ula yaab badan iyo gabar ay sheekaysanayeen. Gabadhii fariimaha ay isdhaafsadeen waxa ay ahayd in haddii ay isaga guursato ay ku qasbi doonto in uu hooyadiis guriga ka buriyo, sidoo kale ay ku qasbi doonto in uu u gado guri iyo baabuur. Markii uu arkay maaseejyadaas aad ayuu u xanaaqay waa uuna qayliyey. Waxa uuna isugu yeeray dadkii guriga joogay oo ay ka mid ahaayeen hooyadiis iyo habaryartiis iyo gabadhii. Waxa uu tusay fariimihii. Markii ay hooyadiis arrintaas aragtay aad ayay u oysay. Waxa ayna ku tiri gabadhii ay habaryarta u ahayd: maxaan kaa sameeyey oo aad u doonaysaa in aad guriga iiga buriso? Waa ay ka soo tageen gurigii iyaga oo xanaaqsan, iyadii iyo wiilkeeda. Waxa ayna imaadeen guriga. Markii ay guriga u soo socdeen intii ay baabuurka soo saarnaayeen, Waliid ayaa hooyadiis waxa ay ku tidhi: waxa igu dhacay maanta wax aan filayay ma aha. Waxaa jirto arrin aan kaa qarin jiray oo aan rabo inaan kuu sheego. Gabadhii xaaskaaga hore ahayd ee Muna waxa ay ahayd gabar wanaagsan oo aad u akhlaaq fiican. Weligeedna ima aysan dhihin hadal xun, balse aniga ayaa ahaa qofka mar walba xumayn jiray, beenna ka sheegi jiray. Maalintii aad arkaysay iyada oo ikala tuuraysa, anna aan dhulka jiifay oo aan oynayay. Run ahaantii aniga ayaa kaga horreeyey oo waxa aan ku dhuftay dharbaaxshi. Markaas ayay si naxariis leh oo tartiib ah saas iskaga kala tuurtay, balse aniga ayaa isa sii tuuray oo ooyey. Maxaa yeelay waxa aan maqlay socodkaaga, waxaana dareemay in aad soo socoto. Waxaan rabay in aan isku kiindiro oo aad sidaas ku furto, anigoo damacsanaa in aad guursato gabadhan ay dhashay habaryarta. Hooyo, waan kaa cudur daaranayaa ay iska kii cafi. Wiilkii aad ayuu u xanaaqay, waxa uuna ku qayliyey: hooyo, hadda haddii aan ku cafiyo maxay ii taraysaa? Mise cudurdaar muxuu ii qabanayaa? Maxaaskaygii ayaa ii soo noqonaysa. Waa uu iska aamusay isaga oo aad u xanaaqsan aadna u murugaysan. Waxa uuna iska aaday shaqadiisa. 2 habeen ma uusan imaanin guriga oo waa uu ka soo dhaxay. Waxa uuna iska seexanayay maktabadda. Habeenkii 3aad ayuu guriga imaaday si uu dhar isaga bedelo. Waxa uu arkay wax uusan filaynin. Wuxuu guriga ugu imaaday hooyadiis iyo xaaskiisii Muna. Waa uu rumaysan waayey. Ma indhahayga mise waa run? Aad ayuu u farxay. Waxa uuna ku soo booday xaaskiisa isagoo raaligelinaya wixii dhacay. Hooyadiis ayaa ku tidhi: aniga ayaa ka dambeeyey arrintan. Intii aad maqneed ayaa waxaan aaday guriga reerkooda. Waxaan soo raaligeliyey waalidkeed. Sidoo kale gabadha ayaa ahayd gabar aad u wanaagsan. Ma aysan u sheegin wixii ka dhacay reerka, balse waalidkeed waxa ay u sheegtay kaliya in ayada iyo ninka ay iskhilaafeen oo dhib yar uu jiro. Waxaa halkaa ku midoobay lamaanihii Waliid iyo Muna. Maalinkaa wixii ka dambeeyey, Waliid hooyadiis ma aysan dhibin xaaskiisa. Waxa ayna ku noolaayeen saddexdooda nolol farxad badan oo aad u qurux badan. Waa Waliid, xaaskiisa Muna iyo hooyadiis.
waxaa halkaa noogu eg qaybtii labaad, waana qaybtii ugu dambeysay ee qisadan. Fadlan ha ka iloobin fiidiyowga inaad like gareyso oo u share gareyso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad u daawato muuqaalo aad u xiiso badan. Assalaamu calaykum.